بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد waxaan ku guda jirnay buugga sayniska fasalka shanaad ee dugsiga dhexe xiisaddan u dambeysay waxaan kusoo sharaxnay cutubka toddobaad oo dhulka iyo hawada sare waxaan kusoo qaadanay maalintii iyo habeenkii waxa dhaliya ayaan kusoo qaadanay oo isbeddelka xilliyadaha wareegga dhulka ayaan kusoo qaadanay cutubka sideedaad waxaan ku qaadanaynaa hadduu ilaahay insha allah ilayska ayaan ku qaadanaynaa fasalka shanaad waxaan ku baran doonaa hadduu ilaahay insha allah walxaha ilayska gudbiya ilays gudbiye ilays ma gudbiye walxaha qayb ilays gudbiye ayaan ku qaadanaynaa hadduu ilaahay insha allah cashirkan haddaan u guda galno cashirka koowaad ardayna waxaa laga rabaa markii cutubkaani dhammaado in walxaha ilays gudbiye uu sheegi karo ilays gudbiye inuu sheegi karo ilays ma gudbiye uu sheegi karo walxaha qayb ilays gudbiyana waa in arday uu sheegi karaa ayaa loo baahan yahay insha allah cashirka koowaad walxaha ilayska gudbiya walxaha ilayska gudbiya waa walxaha u oggolaada ilaysku in uu ka gudbo ama dhex maro ayaa waxaa loo yaqaanaa walxaha ilayska gudbiya walxaha markii ilayska toos u gudbiya ama dhex mara waxaa loo yaqaanaa walxaha ilayska gudbiya walxaha u oggolaada marka ilaysku inuu ka gudbo waxaa la yiraahdaa marka ilays gudbiye ayaa loo yaqaanaa walxaha u oggolaada ilaysku inuu ka gudbo waxaa la yiraahdaa ilays gudbiye ayaa loo yaqaanaa waxaana ka mid ah marka walxahaasi muraayadda akhriska ayaa ka mid ah yacni ookiyaalayaasha oo ayaa ka mid ah dhalada ayaa ka mid ah oo walxaha ilayska gudbiya muraayadda baabuurta ayaa ka mid ah hawada ayaa ka mid ah biyaha nadiifka ah ayaa ka mid ah walxaha oo ilayska gudbiya sidoo kale waxaan ku darsan karnaa walxaha oo ilayska gudbiya tusaale microscope-ku wuxuu leeyahay naftirkiisa waa muraayad oo yacni ilayska u gudbiya ayuu leeyahay okay casharka labaad ilays ma gudbiye ilays ma gudbiye walxaha yacni oo aan ilayska ka gudbi karin ama dhex mari karin ayaa waxaa loo yaqaanaa ilays ma gudbiye loo yaqaano walxaha aan u oggolaan ilaysku inuu ka dhex gudbo ama uu dhex maro ayaa la yiraahdaa ilays ma gudbiye walxaha aan ilayska aan ka gudbi karin ama aan dhex mari karin ayaa waxaa loo yaqaanaa ilays ma gudbiye loo yaqaanaa waxyaabaha qaar oo iftiinka uusan ka gudbin ayaa jira walxaha aan ilayska ka gudbi karin waxaa ka mid ah marka dadka ayaa ka mid ah dadka markaan dhahayn waxaa soo hoosgalaya marka xayawaanada oo dhan ayaa soo hoosgalaya oo sida xayawaanada kale waxaa waaye dadka waxaa waaye xayawaanada uu ka mid yahay soomaan animalska ayuu ka mid yahay marka dadka ayaa laga soo qaatay marka wixii markaas oo animals oo dhan marka waxaa soo hoosgalayaan dhagaxa ayaa ka mid ah looxa ayaa ka mid ah safiitada ayaa ka mid ah biraha ayaa ka mid ah iyo wixii la mid ah marka waxaa soo hoosgalayo wax kasta oo adag ayaa soo hoosgalayo ilays ma gudbiyaha wax kasto adag ayaa soo hoosgalaya casharka saddexaad walxaha qayb ilayska gudbiya walxahaani ilayska toos ma wada gudbiyaan qayb ka mid ah ayay gudbiyaan qaybna way cishtaan tusaale aan kasoo qaadano haddii guri daahiisu khafiif yahay aad gudihiisa ku jirto ma arki kartaa si toos ah waxa banaanka kaga muuqda yacni guri gudihiisa ku jirta oo daaha ku wareegsan gurigii marka waxaa waaye waxaa ka jira marka oo ilays ayaa ka jira banaanka marka sidoo kaleetana ilaysa ka jira gudaha marka ku jirta marka banaanka waxyaabaha oo banaanka yaal si toos ma arki kartaa ayaa lagu dhahay marka
markaas waxaa waaye inaa adiga baraatika aa sameysa ayaa wanaagsan. marka baraatika sameysa ayaa markaas su-aasha si fiican ugu jawaabi kartaa. laakiin waxaa waa maya, si fiican u arki karta qayb ka mid waa arkeysa, laakiin waxaa waaye si fiican u arkeysa. sababta maxay tahay marka? sababta ilayska walaxda si fiican uma qaban, yani walaxda ilayska si fiican uguma dhicin. sidaa darteed marka sidaa darteed walaxda qayb ka mid ah ayaa arki doontaa. marka walaxda marka qayb ka mid ah ayaa arki doontaa in waxoogaa mugdi kaga soo galo, ama waxaa waaye qayb ka mid ah aad aragtid. ilays qayb gudbiye waa waxyaabaha ogolaanaya marka in iftiinku qaybna gudubto qaybna ceshoonto. yani markii walaxda iftiinka qayb ka mid ah ay gudubto qayb ka mid ah ceshoonto ayaa waxaa loo yaqaanaa ilays qayb gudbiye ah loo yaqaana. marka waxaa ka mid ah marka sida daahyada ayaa ka mid ah, marooyinka qaar ayaa ka mid ah, biyaha aan nadiifka ahayn ayaa ka mid ah, dhalooyinka midabeysan ayaa ka mid ah, waraaqaha cadcad ayaa ka mid ah, iyo waraaqooyinka adag ayaa ka mid ah, iyo wixii la mid ah. marka waxaa soo hoosgalaya marka qodobooyin kale ayaa soo hoosgalaya. marka okay, halkan ayuu ka keenaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.